matocan kaga hadlaynaa waxyaabaha adkeeya naasaha waxay ka caawinayaan in ay naasaha noqdaan kuwo adag. waxaan ugu horeeya jimicsiyada xoojiya murqaha laabta ama xabadka, waxaana loo yaqaanaa chest workout. waxaana ugu muhiimsan jimicsiyadaas push upka. push upka waa mid ka mid ah jimicsiyada xoojiya murqaha ku hoos jira naasaha, taasoo kaa caawinaysa inay adkaadaan oo qaab fiican yeeshaan. murqaha adag waxay yareeyaan hoos u dhaca iyo laalaabka naasaha. cabista biyo badan. haddii maqaarkaagu qalalo waxaad luminaysaa dabacsanaantii, sidoo kalena taas oo keenaysa in naasuhu hoos u dhacaan. cabista biyo badan waxay kaa caawinaysaa in unugyada naasaha ay helaan qoyaanka ay u baahan yihiin, taasoo ka hortagaysa dabacsanaanta una horseedaysa naasaha inay noqdaan kuwo adag. cunista cuntooyinka borotiinka leh. borotiinku waa qayb ka mid ah oo dhista murqaha jirka, gaar ahaan naasaha. cunista cuntooyinka borotiinka leh sida ukunta, hilibka cad, gaar ahaan lowska ama kalluunka andhaho lowska sidoo kale iyo digirta waxay xoojiyaan murqaha xabadka, taasoo keenta in naasuhu noqdaan kuwo adag. isticmaalka saliidaha dabiiciga. saliidaha dabiiciga sida saliidda qumbaha, saliid zaytuunka iyo saliidda lowska waxay kaa caawinayaan inaad dib u dhisto unugyada maqaarka naasaha. duugista ama inaad duugto ama aad daligto saliidani aad ku daligto waxay kor u qaadaysaa wareegga dhiigga, waxayna naasaha ka dhigaysaa kuwo taagan oo adag. ka fogaanshaha miisaan lumis degdega. haddii miisaankaagu si dhaqsi leh hoos ugu dhaco, maqaarkaagu wuxuu luminayaa dabacsanaantii, taasoo ka dhigaysa in naasuhu ay hoos u dhacaan. sidaa darteed ka fogow in miisaanka aad si degdega u lumiso. sidaa darteedna waxaa fiican inaad si tartiib ah u samayso miisaan dhimis. xirashada rajabeeto kugu habboon. rajabeetaga saxda ah waxaa fiican oo ay taageertaa sidoo kale naasaha, waxayna ka hortagtaa dabacsanaanta. haweenka sameeya jimicsiga waa inay xirtaan wax loo yaqaano sports bra ama rajabeetooyinka sportiga si ay naasahooda u ilaaliyaan inta ay socdaan ama ay orodka sameynayaan. cunista khudaarta, gaar ahaan khudaarta hodanka ku ah antioxidantska. khudaartani waxaa ugu horeeya tufaaxa, basasha iyo yaanyada. saddexdaba waxay hodan ku yihiin maadooyin kaa caawinaya in maqaarkaagu uu noqdo mid adag, waxayna taas ku horseedi kartaa in naasuhu ay ka fogaadaan dabacsanaanta. isticmaalka ukun iyo malab laysku daray. malabka iyo ukunta, gaar ahaan ukunta qaybteeda cad ee aan jaalaha ahayn, waxay ka kooban yihiin maadooyin xoojiya unugyada maqaarka. marka la isku qaso oo la mariyo naasahana waxay kaa caawinayaan in naasuhu noqdaan kuwo adag oo aan dabacsanayn. hurdo kugu filan iyo ka fogaanshaha stresska. hurdo wanaagsan iyo yareynta stresska waxay muhiim u yihiin hormoonada jirka, gaar ahaan naasaha. marka hormoonada sida estrogen iyo collagen ay si hagaagsan u shaqeeyaan, maqaarkaaga ama maqaarkaagu wuxuu noqonayaa kuwo adag, naasahana waxay noqonayaan kuwo quruxsan oo bilicsadooda ayaa soo baxaysa. collagen weliba maado muhiim u ah quruxda naasaha ayaa ku jirta maadooyinkan. haddii aad talooyin dheeraad u baahan tahana ama su'aalo dheeraada, qaybta commentiga noogu reeb. like saar muuqaalka.